laga hadlayo ammaanka magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yahay arrin si weyn u soo jiidanayso dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan in ka badan 3 milyan ee ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyadoo laga ambaqaadayo sidii loo adkeyn lahaa ammaanka caasimadda ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa isla qaateen in degmooyinka gobolka Banaadir xilliga habeenkii in kormeer joogto ah lagu sameeyo taasi oo lagu sugayo ammaanka magaalada Muqdisho haddaba waa sidee xaaladda amni iyo jawiga ka jira degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir oo kamid ah degmooyinka ugu baaxadda weyn gobolka Banaadir ganacsiga isku socodka dadka gaadiidka ee ka jira degmada Yaaqshiid ayaa waxa uu yahay mid ka badan inta aad filaysay in aad ku aragto degmadaasi saacada daawadayaal waqtigan waxay abaaraysaa 10 waxaa dareemi kartaan mashquulka iyo saxmadda waqtigan ka jirto isgooska Tawfiiq ee magaalada Muqdisho tani waxa ay muujinaysaa ammaanka ka jira caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dad badan oo ku nool dibadaha oo walwal badan ka qabay ammaanka magaalada Muqdisho tani waxay cadeen buuxa u tahay in Muqdisho ay tahay ammaan buuxa waxa ku yaala degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir garoomo lagu ciyaaro kubadda cagta oo dhalinyarada ay ku ciyaaraan garoonkan waxa uu ku yaalaa xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid waxaana ku ciyaarta dhalinyarada mid kamid ah dhalinyarada meeshaasi ku ciyaareysay ayaa waxay inoo sheegeen annaga waxaan deganahay aan ku noolnahay xaafaddan Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid wax dhibana ma aragno habeenkii ilaa 7 saac habeenimana waa baashaalnaa degmada Yaaqshiid dadku waxay ka aaminsan yihiin wax ka jira ma ahan waa nabad hadda xilligan la hadlayna waa xilli 3 saac kor u sii dhaafto habeenimo waan u jeedin dhalinyarada way baashaalayaan wax dhib ma jiro Yaaqshiidna waa dad nabadda jecel isboortiskeeda haday tahay iyo haday dhalinyarada taabaan waan ku faraxsanahay inaan ku noolahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid sidaasi waxa tiri maamo Farxiyo oo kamid ah haweenka ku nool xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid waa dareemi kartaa amniga degmada Yaaqshiid inuu safe yahay intaan oo bulsho ah ayaa ku nool dhalinyaro haween wax walba ayaa saacada wada damaashaada dukaamada furan yihiin shidaalku furan yahay magaalada dhan waa okay maamulka degmada Yaaqshiid iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegeen inay si dhow iskula shaqeeyaan dadka ku nool degmadaasi gaar ahaan dhalinyarada waxa ayna tilmaameen in waqti ay wada qaataan xilliga habeenkii dhalinyarada kusimaha gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ayaa waxa uu ka warbixinayaa ammaanka ka jira degmada uu gudoomiyaha ka yahay waxaan la qaybsanaa farxadda iyo reynta dhalinyarada iyo dadka ganacsatada ah ee soo jeeda 4 saac habeenimo hadda aan joogno waqti qurux badan waxaan leenahay shacabka reer Yaaqshiid guud ahaan reer Muqdisho waxaan leenahay Yaaqshiid waa nabad waa meel la mari karo saacad la doono waa meel lagu damaashaadi karo waa meel loo dalxiisti karo fayeenka gobolka Banaadir Saalax Dheere ayaa waxa uu sheegay in ammaanka ka jira degmadani ay tahay mid lagu faani karo sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu jiro qorshe amni uu diyaariyay maamulka gobolka Banaadir gaafmeerkan caawa waxa uu qayb ka ahaa qorshaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ugu talagalay in lagu shaqeeyo amniga gobolkan si ay isdhaxgal u sameeyaan laamaha kala gedisan ee ammaanka iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan iyadoo bulshada lagu dhiirigelinayo inay wada shaqeyn buuxda la yeeshaan ciidamada booliska ee hadda howlgallada ugu weyn ka wada ee magaalada tan Muqdisho waxaana gudoomiyaha faray qaybaha kala gedisan gudoomiyaasha degmooyinka iyo ku-xigeenadoodaba in qorshe cad ay la yimaadaan marka laga hadlayo ammaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir sida uu ammaankeedu u adag yahay waxa tusaale kugu filan xilligan oo ah saqdhaxa ah waxaan ka soo hadlayaa degmada Yaaqshiid gaar ahaan ifaafka hore ee hotel Guuleed ee magaalada Muqdisho